إنه وحين قادنا نظام فدرالي بين قادنا نظام كفدرال كا وحين كل سنة إنه نسميه الدستور لبكون يلبيه طبعا كبير نسميه دستور قبيعة دستور كقبيعة هل كان نكسمينه جرو أيام نكسمينه دوه الشيسينتي واللح قضبة هيد بان أنا وحنا جسوا هذه واللح ميلاد كالدوان إن لجوا كلا سمية هيد شنتي كلا حمر بالوجو سمية دستور كهل كان لجو سمية لبك كلام بانو كيالنا هل كان سوماليو دم بانو كان هل كان إن لجاه الشيء دستور كسومالية لناس أدي السببان وصلتني نيروبي بان وصلتني دستور قبية قرالة بان وحن اسوير نحمر سداد بقول إيه إنك بدن وإرجو والله أخري قعنتي أتاجن دستور كاس قضبوك كوبين قضب حل كان كحل ويني وأن أباهني إن نلصقنا وقت كلا وأن هلكرنا ضد مثيلة إياه بالعيد الصومالي أوردن وحكم لها أودي لبضة هير معمول حان وحنو سلق قرني إن بدنيهين أودها سو إن بدنيهين هدي اللي سهان لقره مدول بهوس هذا لقو قره انت ايتهاي إني سميسو waxaad dhici karta inaad wax loo baahnaa labada meeloodba ka ilowdo oo hadhow mushkilad noqoto markay soo baxdo oo yaalatan halka looga fiirinay waxaan halkaa ku qornayn haddee anaa baa imanaysa doodii waxay gashay dowladda dhexe maxay leedahay afar qodob baanu dhaafin weyne afartaa qodob bay leedahay dowladda dhexe si kalsooni loo helo si dalka u kala dego awoodii waa in la geeyaa meesha maamulka la geynayo marka afartaas wax kale oo ka baxsan dowladda dhexe ma siin karnaa baa dadkii meesha fadhiyay isla garteen afartaas waa loo qiray in dowladda dhexe la siiyo waa siyaasadda dibadda waa difaaca dalka وجنسيته والعقد أفرتاس وحي كبحسن وحين مركا نقونيسا بربا هدان لحسن ميلنا لغو حسن أفرتاس وحي كبحسن دولة قولدية داليوي إنه كلمة هدر البضن بانا سيدا شرع قود أولا سنية وحال لحسي وهالكا لغو حسي وحانا هين والله دا سكومة ماشوي waxa aan la xusin oo dhanna dowlad goboleedyada leh ujeedada sharciga ku samaysan yahay saas weeye marka waxa dhib badan laga soo maray in meel walba khariidada Soomaaliyeed meel walba si loo degan yahay oo dadku u degan yahay in meel walba gacan laga geysto inay halkaas khariidadu buuxsanto halka maamulka dhismo Jubbaland si dib leh baa loo dhisay Soomaali gal maxaan ku iraa koonfur galbeed si dib leh baa loo dhisay Hirshabeelle si dib leh baa loo dhisay oo mintida galmudug bilowgii si dib leh kuma dhicin laakiin intii ka dambeysay maamulkii baa dhibaatooyin badan ka yimid ilaa kii hadda ugu dambeeyay ma garanaysaa sidii loo dhisay xogogaal baa loo wadayay jowhar iyo dhismihii hore jowhar iyo baydhabo iyo kismaayo iyo maxaan ku rahaa galmudug dhibaato dhig ku daatay dhismihii dowladnimada ma jirin laakiin hadda intay dowladda tuna joogtay oo maamuleysay baydhabo iyo meesha la yiraahdo dhuusamareeb labadaba dhiig baa ku daatay waxaana muuqanaysay inay dowladdii dhexe faragelin toos ah
shuruucdii u deganaa aan ahayn qodobadii sharcigu sheegay aan ahayn waxa weeye maamulka halkaa ka dhisan dowlad goboleedkaas waxa weeye inan meel laga soo faragelina iyagu maamulaan howlahooda inay maamulaan oo iyagu si dimuqraadiya oo transparent oo muuqata kula soo baxaan madaxdii hogaamin lahayd hadda dowladda tan waxay ku bilowday inay awooddii dastuuriga ahayd oo federaalka ahayd meel iska dhigto oo u shaqayso sidii dowladihii nidaamadii aynu ka soo guurnay oo tii dimuqraadiga ahayd tii militariga ahayd oo maxamed siyaad bare waqtigiisii jirtay dowlad hal meel laga maamulayo yani inay madaxtooyada ku ururdho awooddii oo dhan taasoo ka baxsan dastuurka lagu heshiiyey ka hor imanaysa waxaa kalooto ay soo kordhiyeen oo dhibaato ah talooyinkii loo jeediyo o aanay qaadanayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa cusub yihiin waynu dooranay dad baynu kala soo dhex baxnay laakiin inay xogogaal u noqdaan in wixii soo jiray inay talooyinka ka qaataan dadka wax ku darsaday meesha wax ku leh dhankooda kama suuroobin